waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan cashi suulweyn isugu jira loogu sameeyay Yahye Hunter oo ah mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwada ugu caasan ee baraha bulshada sidoo kalena shakhsi sports iyadoo kulankaasi ay soo qabanqaabisay shirkadda agabka sportska ee a2z Sports House ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay madaxa fulinta shirkadda iibisa agabka sportska ee a2z Sports House Master Jamal wuxuuna sheegay inaan ka daali doonin soo dhaweynta shakhsiyaadka saameynta leh dhalinyarta meesha iskugu imaaday marti sharafka meesha iskugu imaaday waa mahadsantihiin xafladan qiimaha badan ka soo qayb qaadateen waxaan leeyahay soo dhawaada xafladan waxaan ugu talgalnay walaalkeena Yahye Hunter inaan ku soo dhaweyno waxa way wadan walbo waxa way qofkiis horyaalku ah ayaga qiimeystaan marka waxaan u aragnay Yahye Hunter inuu yahay horyaalkani hadaan nahay Soomaalida ku nool Mogadishu أنا أقول لها أفك a2z Sports House وحن لها ولكن يحيى حنتر سودو حفلة دان وحن أقول تلقلنا سيدي بورك أقول هاي ويلكم ومجال ده مقدشو وعاصمة ده وحن لنا حفلة دير جيلين أذن أقول تلقلنا أو أنا أقول سودو بينو وحن كفر أحسننا هاي إن قاب كقاعدنا إن يحيى حنتر ولكن أن كسودو بينو magaalada Mogadishu waxaan leeyahay xaflad weyn oo furan tahay waxa waaye martida ku soo qayb gashin waa u mahad celinaa xafladan quruxda badan marka insha Allah xafladan weyn oo furan tahay welcome aan ku leenahay Yahye Hunter sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Yahye Hunter oo ah shakhsiga loo sameeyay kulankan soo dhaweynta ah wuxuu aad ugu mahad celiyay shirkadda a2z Sports House oo hadii jeer u taagan dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان متشرفك كسوق قبل حفلتان هذا قماد علينا سشرف لا أنا وسلام دمان تو دملو بيجوجان أما بفديو ذا كسلام أنا وسيدو كلا توحى كان قماد علينا a2z أو سوق مقابس حفلتان قرحة البطن يوليبا مرحبا هوتيل أو ماشي حتى حفلة كذا عيسى سكست حتى هذا وفرح سنة هاي وأنا كم سنتين سيدو قرحة البطن أو سوق قبل حفلتان Yahye Hunter ayaa gabagabadii halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarin ahayd YouTuberkii ugu fiicnaa ee sanadii tagtay 2020 waxaana abaalmarintaasi ugu guddoonsiiyay khabiir saxaafadeed Aweys Maxamed Nuur Aweys R